iyadoo uu foodo inugu soo hayo diyaar garowga koob sanadeedka loo qabto kooxaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Tani Woodward ayaa waxaa qaar kamida kooxaha kala duwan ee ka ciyaara magaalada Tani Woodward la soo gaarsiiyay agab isboorti iyadoona uu soo gaarsiiyay mid kamida qurba joogta u dhalatay magaalada Tani Woodward isla markaasina lagu magacaabo Cabdidheere Cali Jidaal kooxdani ayaa u mahadnaqay Cabdidheere Cali Jidaal isla markaasina baqyo kala duwan u jeediyay qurba joogta kale oo ay sheegeen inay ku soo daydaan isla markaasina ay ka soo qayb qaataan dhismaha garoonka iyo waliba sidii dhalinyarada looga mashquulin lahaa arrimaha badbadeeda tahriibta iyo waliba falalka argagixisanimo Somali Welfare Development Trust oo noo soo gudbisay qolada sportiga ee Woodward degmada Woodward inuu soo gaarsiiyay Cabdi Cali Jidaal reeskan ay kooxaha sportiga qalabka sportiga aad baan idinku mahadnaqanaa mar labaad iyo mar saddexaadba horena waa nooga soo gaadhay alaab noocaasi waxaan idin leenahay de kuwa ka sii wanaagsan iyo ka sii farabadan oo la idinka baahan yahay kooxuna inta waa ka farabadan yihiin hadda waa afar kooxood inta wax maartay alaabta la siiyay waxaan filayaa kooxaha kale harayna de way idinka suganaa iyo taageero aad baan ugu mahadnaqanaa Cabdi Cali waa markii la aan soo gaarsiiyo anagoo ah dhalinyarada degmada Woodward ee sportiga waxaan leenahay dadka ka soo jeeda deegaankan sida Cabdi Cali oo kale waxaan idinka baahnaa agab sportis oo waqti naadiyadu badin hadda waxaan soo gaaray afar garmadood laakiin waxa loo baahan yahay 6 iyo 8 beenana soo gaaraan la yiraahdo Man City marka hore Liverpool aad baan ugu mahad celinayaa odaga ma keenay alaabta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadku waxay u baahan yihiin horumar adduunka waa laga gudbiyay qabyaaladii waa laga gudbay wax taageero naadiyada ay ku jiraan kowd marka waxa weeye dadkan qabyaalada ka tirtira dadkina dibadda joogo waxa weeye inay noo soo badisaan maaliyadaha iyo adduunyada waxa laga joogay marka hore waxaan mahad iska leeyahay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa Cabdidheere oo noo keenay funaanadaha sportiga waxaan leeyahay anagu sportiga waxa baahido kaliya afar funaanadaha tiimamka ma aha tiimamku far badan yihiin tiimamku de si u badan yihiin funaanadaha loo rabaynayo iyo sportiga wax naga dhaqaale galinayaan ma jiraan صاحب Cabdidheere marbar uu keenay funaanado markii uu horeysay uu keenay maaha waxaan leeyahay waad maasan tahay adiga kuwa ka soo qaaday iyo dhamaan waxa garabka ka heshay waxaan sidoo halkan baa waxa laga yaabaa in laga keenay Liverpool ana hadda Liverpool ma tagaan waxaan kooxda Chelsea in ka soo dalbanayo inuu soo dhiibay Hazard inuu yahay salaamiyaha sportska degmada Woodward waxaan qabanay 2 sano hore ayaan 2 koob qabanay sanadkii hore iyo sanadkii dambe waxa qaaday koox leeyahay badaada dhisaya horyaalka ku guuleysatay degmada labada jeer ay qaadeen labada jeerba waxa uu ismaamulay dhalinyarada sportiska ee deegaanka laakiin wax meel dheer nooga yimid ma waxa aad ugu mahadsanoo koobka noo qabtay ugu dambeeyay ee weynada liigaha ninka la yiraahdo Arwakiin oo uu gudoomiye ka yahay ninka la yiraahdo Sharmaarke Aadan Jaamac aad buu ugu mahadsan yahay koob weyn buu noo keenay iyo maaliyado aan ku galay waana ganacsado weyn waxaan leenahay Allah ku barakeeyo ganacsigaaga inta kale ganacsatadaana waxaan leenahay waridi fursada kuwaas u dhigaan qodina qurba joogta ana waxaan leenahay warmeelaha Cabdidheere ka soo qaadaya mar walba dadku nooga soo qaado koob soo taageera aan noo soo taageera qarwarkii meesha waa habsanaynaa waxaan jecelahay sanadkan koobka in laga soo qayb qaato oo si macnale looga soo qayb qaato magaalada Laascaanood ka soo horjeedka mustaqbalka Laascaanood waana nin dhashay degmada Woodward kana soo jeeda iyadoo waxba kala ahayn Laascaanood iyo tan marka waxaan leenahay sida ganacsadaha soo kale war idinkuna mar kale iyo mar labaad waxaan idinku codsanaynaa soo taageertaan sportska degmada waad aragtaan garoonkiisa degmada garoonka Braha ayaan taagnay waxaan naga maqan seeskii dhismihii hadda noo dhisi kartaan iyo hadda noo qaban kartaan bawr noo qabta waan idin leenahay dhamaantiin bajariyadaha dibadda dalka dhamaan sportska la taageero dhalinyarada sidii looga hortagi lahaa qaadka iyo sigaarka waa in dhalinyarada sportska la taageero iyo tahriibta waliba waa in dhalinyarada wadanka loo xiiso geliyo
وبالله توفيق aad baad mahadsantihiin dhamaan wariyaha iyo Cabdi Cali Jilaal oo nagu wareejiyay maaliyadda waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin wariye Sakariyana mar walba wuxuu ka qayb qaataa horumarka degmada waxaad ogaataan inuu yahay wariye ku caan baxay sidoo degmada horumarkeeda uga shaqeyn waana ku mahadsan yahay mar labaad iyo mar kaleba waxaan leenahay warsoo garab istaaga sportska degmada Woodwood anigoo ah Cabdiqadar Maxamed Xaaji Dirir ahna gudoomiyaha degmada ee sportska deegaanka Woodwood waad mahadsantihiin dhamaantiinba wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ilaahay mahad uga naqayaa anigoo maanta jooga Woodwood waa degmadaydii iyo dhulkii aan ka imi dad dhalinyaro oo aad u fiican oo sportka jecel baa halkan jooga waxaan ku wareejiyay qalab sport oo aan ka keenay Somali Welfare Development Trust anigoo ka mahanahay chairmanka jaaliyadda halka joogtay Liverpool waxaan doonayaa inay aan aad iyo aad ninkan inuu ku mahadnaqayaan weyniin mahadnaqayaan qolooyinka kale ee mahanahay deegaankan ka tirsan wax badan baa looga baahan yahay wax walba baahi badan baa meesha ka jirta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكرية محمد عيسى السكرية وطني وراركة تلفزيون كعالمي رويال مقالة Woodwood.